السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سو dhawaada meel walba joogtiin channelka daawanaysiin waa channelkii Dr. Saddam Xuseen maanta sidaad mar walba ula socotiin channelka maanta waxaan ka hadlaynaa waxa waaye barnaamijka caafimaadka mar walbana noo ahaa like in aan maalin walba kala socotiin channelka maanta waxaan ka hadlayaa waxa waaye gabadha markay dhasho kadib ma qaadan kartaa wax loo yaqaano contraceptive pillska ama sida loo yaqaano sida loo yaqaano oo ah family planning ma isticmaali kartaa marka ay dhasho ayna nuujinayso marka horta sida loo yaqaano sharci ahaan ama jirkaaga markii ay gabadha ay dhasho hormoonadeeda idil way isbedelayaan hormoonadii oo caadada keenaysay hoos bay u dhacayaan hormoonadii oo caanaha keenaya ayaa badanayo sida hormoonadan waxaa ka mid ah prolactinka iyo oxytocinka marka prolactinkan iyo maaragtay oxytocinka markii ay bataan maxaa dhacaya marka hormoonadii kale oo caadada keenaya sida progesteronka iyo estrogenka in ay hoos u dhacaan mar walba gabadha in haddii ay exclusive breastfeeding ay hagaajinayso exclusive breastfeeding waxaa waaye maalintay dhashay ilaa iyo 6 bilood haddii cunugii ay nuujinayso waxaa dhici karta 98% boqolkiis 98 in ay uur ay qaadin sidaad u taqaaniin 2% ka soo harina waxaa dhici karta gabadha inay uur qaado laakiin ma ahan inay gabadha ay uur ay qaadi kareen 6 bilood ugu horeyso dadka qaarkood way u shaqeysaa dadka kalena uma shaqeyso habkani 2% kaas failure way dhacdaa oo maaragtay dhibkaas wuu imaadaa oo 2% kaas laakiin maxaa dhacaya marka gabadha 3 week ugu horeyso wax uur ma qaadi karta inta ay umusha ay ku jirto sida anaga muslimiina u naqaan ama Soomaali ahaan u naqaan inta ay gabadha ku jirto umusha ma qaadi karta maadaama uu dhiig uu ka maqan yahay markaas kadib haddii ay hagaajiso ama ay practice gareyso exclusive breastfeeding oo 6 bilood ah ayadana waxaa dhici karta boqolkii 98 in ay uur ay qaadeen marka waa maxay marka contraceptive pillska ama family planning wuxuu kala baxaa laba nooc waxaa jirta mid hormonal ah iyo mid non hormonal ah non hormonalka sidiis gabadha waxay gashan kartaa 48 hours after delivery maaragtay ay gashan kartaa markii ay dhasho laba maalmood kadib ayay gashan kartaa ama 3 week kadib ama 6 week kadib ayay isticmaali kartaa sidii uu dhakhtarka kula taliyo marka ayda ah marka kadib hormonalka laba nooc buu kala baxaa waxa waaye combined contraceptive pillska iyo progesterone only pillska kuwani waa kaniimo marka progesterone only pillska ilaa 3 isbuuc aad ka dhameysanaysid ama sida loo yaqaano 40 intaad ka dhameysanaysid ma isticmaali kartid maadaama ay la xiriiraan gabadhii in uu dhiig badan uu ku furaayo oo jirkeedii iyo maaragtay dhiig badan oo loo baahnayn uu ka imaanayo gabadhii maxaa la yiraahdaa combined contraceptive pillska waxaa ka tirsan yahay estrogen iyo progesterone only pillskana waxaa waaye progesterone only waaye marka combined contraceptive pillskana oo progesterone iyo estrogenka ah labadan la isku daray ah sidiis waxaa waaye gabadhii ilaa iyo 6 bilood waxaa la yiraahdaa intii umushay ka bixisay ilaa 6 bilood ilaa bilooyin ay ka gaarayso uma fiicno maadaama oo maaragtay caanaha ay soo raaci karaan daawooyinkani marka mar walba waxa fiican haddii aad isticmaalaysid daawooyinkan ama family planning aad isticmaalaysid aad maaragtay reasonable wax oo maaragtay macquul gal ah aad u isticmaalaysid dhanka diiniyan iyo dhanka kalaba maaragtay maaragtay caafimaad ahaan haddaad u isticmaalaysid oo maaragtay sharcigan uu raacsan yahay mar walba waxa fiican in aad dhakhtarkaaga aad la tashatid wixii caafimaadkaaga aad ku badbaadinaysid ama adiga nafsi ahaan isku badbaadinaysid mar walba waxa fiican in aad dhakhtarkaaga aad la tashatid labada dhinacna aad fiirisid diinta iyo medical in aad fiirisid marka asxaabe waxaan soo gaarnay barnaamijkii gabagabada iyo gudaanadka barnaamijka meel walba joogtiin fadlan channelka ka ilaawina subscribe like and share ka waadna ku mahadsantiin